عشقينا وذا قليل عدق وادك قبستا قليقي بوهاديو ويورين كيسيبا نفتيدا قبيا كاتيقي kaga qaadayno qodobo ay kamid yihiin dawladda Turkiga oo qabatay generaal kamid ah ciidamada oo inqilaab maagana iyo waxyaabaha ay arintaasi banaanka soo dhigtay isla barnaamijka dhexdiisa ayaynu ku eegi doonaa qaabka ay kala qaybsanaanta siyaasadeed ee wadankaasi u noqotay barta ay shisheeyuhu wax yeelan karaya ay u soo maraan macluumaad kale ayaa raaci doona ku soo dhawaada barnaamijka maanta kusoo dhawaada Shal Online Shopping Center macaamiisha sharafta leh waxaan maanta halkan idin kula wadaagaynaa qaybo ka mid ah alaabta tayada leh ee aan bulshada u hayno. Tani waa saliidda garhka, waxay soo saartaa garhka, waana saliidda dabiici ah oo original ah taasoo muddo kaga soo saaraysa garhka. dalka Turkiga ayaa cadeynaya in la qabtay oo la xidhay tafatiraha wargeyska Yanshafaq ee dalka ka soo baxa Hussein Likoglo ahna wargeys u dhow xisbiga talada haya ee cadaaladda iyo horumarka ayaa warbixin uu kaga hadlay khatarta ay leedahay kooxda Fethullah Gulen waxa uu ku soo daray in taliyihii hoggaanka wardoonka ee ciidamada dhulka ee dalka Turkiga General Serdal Atsoy la casilay oo la qabtay markii la ogaaday in uu u shaqeynayay kooxda Fethullah Gulen oo ah kooxdii ka dambeysay inqilaabkii hore ee fashilmay 2016 taliyaha hoggaanka wardoonka ee ciidamada dhulka ee wadan leeyahayna waxa uu ka mid yahay saraakiisha ugu muhiimsan ee soo goysa dhaqaaqa iyo howlgallada ciidamada waana sarkaalka ay warbixinihiisa sirdoon ciidanku ku go'aan qaataan taas oo u suuro gelin karta sarkaalka inuu wax ka bedelo fadhiisimada ciidamada iyo howlgalladooda sida oo kalena xiriirka joogtada ah ee dhammaan saldhigyada ciidamada iyo xuduudaha dalalka kale uu la sameynayo ayaa u suuro gelin kara inuu ciidanka dhexdiisa ka dhisto saraakiil isaga la shaqeysa oo uu aaminsan yahay waana sarkaalka sida fudud u kala baranaya dhaqamada shakhsiyadeed ee saraakiisha ogaan kara liiska ciidamada dhaqaale ahaan lagu kaxaysan karo ee la laaluushi karo dabadeedna la adeegsan karo muddo 5 sanadooda Hussein Likoglo ma cadeyn xilliga rasmiga ah ee la qabtay generaalka laakiin hadalkiisa ah waxa xilligii inqilaabka laga joogaa 6 sanadood ayaa inoo cadeynaya in qabashadiisu ay dhawaan u ahayd iyadoo generaalka xilka muhiimka ahna loo magacaabay bishii 8 sanadkii hore 2020 oo uu muddo 5 bilood uun xilka hayay khatarta afkambi dhaca wali waa mid taagan oo suuragala waxaana kooxda Fethullah Gulen oo saldhigeedu yahay dalka Mareykanka uu ku tilmaamay mid ka hortageedu yahay waajibaad diiniya iyo mid wadanimo sida uu qoraalkiisa u dhigay kooxda Fethullah Gulen waxa ay tan iyo 6 lahayd gaashaan difaac oo mar walba gudaha dawladda Turkiga ku dhex jiray gaashaanka oo ah uu yiri shabakad ballaaran oo ilaa maantadan ka sii mida dawladda Turkiga lama huraana ay tahay in la daha qaado oo la ogaado culays dheeraad ahna la saaro ogaanshaheeda koor inta aanay xaaladdu faraha ka bixin mar haddii aynu la kulmayno iska horimaad noocaas ah oo heerka gaarsiisan kadib 5 sanadood xilligii ay inqilaabka isku dayeen waxa ay nala gudboonayd waa in aynu helo difaacda kooxda Fito sida waxa qoraalkiisa ku sheegay Hussein Likoglo tafatiraha wargeyska Yanshafaq ee dalka Turkiga oo intaa ku daray in marka ay ogaadaan shabakada ay hubaal tahay inay ka heli doonaan dhammaan macluumaadka ay u baahan yihiin inta haddii aynu kaga gudubno warbixintii tafatiraha wargeyska oo ahayd warbixin dheer ayaa inkasta oo dawladda Turkiga ay military ahaan dhaqaale ahaan iyo tiknoolajiyad ahaan horumartay oo horumarkaasina yahay mid lagu sababeeyo tacliinta bulshada wadanka ee kor loo qaaday oo ay siyaasadda arrimaha dibaddana dhaqaaq badani ka samaysay caalamiga ahna saameyn ku yeelatay ayaa haddana waxa weli halka ah cadaadis iyo kala qaybsanaan gudaha wadanka ah
goljiricda oo ah ta looga soo dhacay ay cadowgoodana ka faa'iidaystaan iyada oo loo samarayo kala duwanaanshaha fikradeed iyo xisbiyada siyaasadda ee dalka ka jira oo ay ka mid yihiin xisbiga weyn ee cilmaaniga ee uu aasaasay Mustafa Kemal Atatürk oo ahaa aasaasihii jamhuuriyadda Turkiga ee aynu maanta naqaano. Xisbiga oo aasaaskiisa laga joogo muddo haatan ku dhow 100 sannadood, iyo xisbiga talada haya ee siyaasadda islaamiga ee wata ee uu aasaasay madaxweynaha haatan Rajab Tayyip Erdogan sanadihii 1990 ee qarnigiina dhaafay, kaasoo Turkiga soo xukumayay tan iyo 2002 kana soo shaqeeyay sidii Turkiga uga baxeen marxaladihii saboolnimo ee muddada dheer haysatay, sababna u noqday inay maanta ka mid noqdaan 20-ka waddan ee dunida ugu qanisan, isaga oo xisbiga Erdogan ku guuleystay dhammaan doorashooyinkii dalka ka dhacay 20-kii sano ee ugu dambeeyay. Doorashadii u dambeysay ee dowladaha hoose ee dalka Turkiga ee sanadkii 2019 ayaa inkasta oo isbahaysiga talada haya ku guuleystay boqolkiiba 52 iyo in ka badanba, haddana waxaa isbahaysiga xisbiyada mucaaradka ay heleen maareeyada 3 magaalo ee ugu waaweyn dalkaasi sida caasimadda Ankara, magaalada muhiimka ee Istanbul, iyo magaalada saddexaad ee dalka ugu weyn ee Izmir, waana 3 magaalo ee uu ka soo baxo kala badh dakhliga wax soo saarka gudaha ee dalkaasi Turkigu. Waxaana guusha ay xisbiyada mucaaradku ka gaadheen magaalooyinka waaweyn loo arkayay xilligaa inay tahay hoos u dhac ku yimid taageeradii hagarla'aanta ahayd ee dadweynaha Turkigu Erdogan iyo xisbigiisa u hayeen muddada dheer. Madaxweynaha Turkiga laftigiisu haatan waxa uu natiijada doorashada dowladaha hoose ay tahay digniin ay shacabka u jeediyeen xisbigiisa iyo isbahaysiga la socda, waxaana uu ugu baaqay xisbiyaanadiisa iyo xukuumaddiisu inay saxaan waxyaalaha ka qaldamay ee ay dadka qayb ka mihiba kaga leexdeen. Xilligan madaxweynaha Turkiga iyo isbahaysigiisa xukunka haya waxay bilaabeen qorshe lagu bedelayo dastuurka dalka u yaala oo ah dastuur ay hore u diyaariyeen saraakiil afgembi ku qabsatay waddankaasi. Waa hagaag, inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeeni maanta oo aan si toos ah idinku soo gudbinayay anigoo ah Samater Cumar Yuusuf. Intaynu barnaamij la mid ah ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.